Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan, kusoo dhawaada Yasma Yaasiin channel. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa barnaamijyada taxanaha caafimaadka, qeybta barashada daawooyinka ama maadada farmakolojiga loo yaqaano. Qeybtan insha Allah waxaan uga hadli doonaa hadduu Ilaahay idmo barashooyinka ama barashada daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ah ee la dhaho painkillers. daawooyinka xanuun baabi'iyaasha waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood. qayb waa analgesic, qaybna waxaa loo yaqaanaa antibiotics. Analgesic waa daawooyin loo isticmaalo in lagu yareeyo xanuunka. Antibioticna waa daawooyin loo isticmaalo in lagu yareeyo qandhada ama xumada. waxaa jira laba nooc oo xanuun baabi'iyaal oo kala ah. mid waxaa loo yaqaanaa opioid analgesic, midna waxaa loo yaqaanaa non opioid analgesic. Opioid analgesic waxaa ka mid ah daawooyinka opioid analgesic la dhaho, yacni xanuun baabi'iyaasha waxaa loo kala qaybiyaa laba qayb. waxaa la dhahaa opioid, waxaana ka mid ah morphine, codeine iyo tramadol. Opioid analgesic waa xanuun baabi'iyaasha aadka u xooga badan oo la siiyo qofka markuu xanuun baabi'iyaasha caadiga ee aan naqaano sida paracetamolka iyo kale iyo panadolka iyo qofka wax ka tari waaya. Marka opioid waa daawooyin xanuun baabi'iyaal laakiin tayadooda aad u sareysto, aadna u culus oo waxa weeye aan la mid ahayn sida xanuun baabi'iyaasha caadiga. Marka opioid analgesic waxaa ka mid ah morphine, codeine iyo tramadol. Non opioid analgesic waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyaasha caadiga oo aan maalin walba isticmaalno sida paracetamol, aspirin, panadol. sidoo kale waxaa jira xanuun baabi'iyaal la isku dhaho non-steroid anti-inflammatory drugs oo loo soo gaabiyo NSAIDs loo soo gaabiyo. Marka non-steroid anti-inflammatory drugs waxaa ka mid ah ibuprofen and diclofenac. insha Allah dhawaan waxaan bilaabi doonaa maalinta beri ah insha Allah barashada qaybaha kala duwan ee xanuun baabi'iyaasha. wax badan ka ogow.